السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن شاء الله تعالى ما أنت وحين كهذلينا سورة الإخلاص أما قل هو الله أحد فضلك إلهي تفسير كذا يولب وقت يدي ورسولك عليه الصلاة والسلام سيدة شوكتدا هو أخرين شري. سورة الإخلاص أما قل هو الله أحد وسورة مكية رسولك عليه الصلاة والسلام وحي كسو دكتي سقو مكتشوغا وحي ككوبانتهاي أفر آيادود وحا كتشرا شن يتبن كالمدود وحاني ككوبانتهاي تضبيو أفرتن حرف. سورة قل هو الله أحد سورة الإخلاص رسولك عليه الصلاة والسلام وحو كشاقي فضائل آدو فربضا وحين كسو قادن دونا قار كمد فضائل شيدا. سورة الإخلاص أما قل هو الله أحد هدي آد شعلاتو إلهي با سبحانه وتعالى أدقنا كجعلانيا. حديث كاي ورينيس أمنا عائشة رضي الله عنها أو صوصار البخاري وحيتري رسولك عليه الصلاة والسلام وحو دري عيدا يرو قادماء كدبنا وحو أمير ودقي صحابي قاسي مرولو وصلاة تجينيو وحا كسو ختمي جري قراءة قل هو الله أحد. مركي أي صون نغضين أي رسولك عليه الصلاة والسلام وشاقين رسولك عليه الصلاة والسلام وحو يلي ويدية muxuu sidaasi u samaynayaa markii la weydiiyey ayaa wuxuu yidhi innahaa sifatu الraxmaani wa ana uxibu an aqra'a biha. suuraddani waxay ka warramaysaa allaha raxmaanka sifooyinkiisa aniguna waxaan jecelahay inaan akhriyo. rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi u sheega inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala jecel yahay. suuratu اlikhlaas haddii aad jeclaato jacaylkeeda waxaad ku gelaysaa jannada. xadiiska uu warinaya anas binu maalik allaha ka raali noqdee ee uu soo saaray bukhaarina wuxuu yidhi saxaabi ayaa wuxuu imaam ka ahaa masaajidka quba kadibna mar walo uu salaada tujinayaba qiraa'adiisa wuxuu ku furan jiray qul huwa allahu axad. suuratu lfaatixa markuu akhriyo wuxuu akhrin jiray qul huwa allahu axad kadibna wuxuu sii raacin jiray qur'aankii kale. qoladii uu imaamka u ahaa ayaa waxay ku yidhaahdeen suuraddan baad akhrinaysaa kadibna ku koobnaan mayside qur'aan kalena waad akhrinaysaa ama suuraddan uu nagu tuji ama qur'aankii kale nagu tuji. waxa uu yidhi sidaa yeeli maayo, haddaad sidaa jeceshihiin waan idinku tujinayaa, haddii kalena cid kale imaam ka dhigta. waxay naceen inay cid kale imaam u noqoto waayo waxay u arkayeen inuu yahay kooda ugu fadliga badan. rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam maruu u yimid ayay arrinkii u sheegeen. rasuulka ayaa ku yidhi hebelow maxaa kuu diidayaa inaad yeesho waxay asxaabtaadu ku farayaan, se maxaa kugu kalifayaa inaad ragcad walba ku tukato suuraddani? waxa uu yidhi waan jecelahay. rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam ayaa ku yidhi jacaylkeeda ayaa jannada ku geliyey. xadiiska uu warinayo burayda ee uu tirmidi soo saarayna rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam ayaa wuxuu maqlay nin ku ducaysanaya ducadani allahuma inii ashhadu biannaka anta allahu laa ilaaha ilaa ant alaxadu الsamad alladii lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad. markaasaa rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi waxa uu ku ducaystay oo ilaahay ku baryay magiciisii weynaa, magacaasi oo haddii ilaahay lagu baryo uu ducada aqbalo, haddii wax la weydiistana waxaasi uu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu bixiyo. suuratu اlikhlaas ama qul huwa allahu axad qur'aanka waxay u dhigantaa 3 meeloodow meel. xadiiska uu warinayo abi saciid alkhudari ee uu bukhaari soo saaray rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi qul huwa allahu axad waxay u dhigantaa qur'aanka 3 meeloodow meel. sidoo kalena rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi midkiin miyuu ka caajisayaa
إن هبينكي أخري قرآن كصدح ميلودو ميل صحابتي أيا يلي رسولك إلهي وسيدي أيو أخرين كريا مركاسا وحو يلي قل هو الله أحد وحي أدقنتا قرآنك صدح ميلودو ميل حديثك كلي ورنا يا أبي سعيد الخدري ومسلم صوصارينا نين أيا وحو مغلينين أخرنا يقول هو الله أحد وكعل علينا يي كدبنا واجي مركو بريء أيو رسولك عليه الصلاة والسلام وشيغي waxaanad moodaysay ninkaasi inuu ajarkeeda yaraystay markaasaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi allaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee waxay u dhigantaa qur'aanka saddex meelood oo meel suuratul ikhlaas fadliga aadka u qiimaha badan leh ayay leedahay rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam waqtiyo ayuu aad u joogtayn jiray waqtiyadu rasuulku joogtayn jiray waxaa ka mid ah labada ragcadood ee ka horeeya salaada subax rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tukan jiray qul huwa allahu axad iyo qul yaa ayuha alkaafiruun xadiidka uu warinaya abu hurayra ee uu bukhaari soo saaray sidoo kale rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tukan jiray labada ragcadood ee ka dambeeya salaada maqrib qul huwa allahu axad iyo qul yaa ayuha alkaafiruun sidoo kale rasuulka calayhi salaatu wasalaam labada ragcadood ee dawaafkana sidoo kale wuu ku tukan jiray adkaarta subaxi iyo adkaarta gelika dambena wuu akhrin jiray markuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam sii seexanayana qul huwa allahu axad iyo mucawadateynka ayuu akhrin jiray salaadaha marka laga baxo waxaa ka mid a sunnaha in suuraddaasi la akhriyo iyo qul acuudu birabbi lfalaq iyo qul acuudu birabbi nnaas fadaaishaasi ayay leedahay qul huwa allahu axad suuratul ikhlaas sidaynu hore soo sheegnay waxay ku soo degtay rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoo maka jooga sababtii ay ugu soo degtayna waxay ahayd quraysh iyo gaaladii ayaa waxay ku yidhaahdeen rabbiga noo sifee ama rabbiga aftirsiintiisa noo sheeg markaasuu ilaahay subxaanahu wa tacaala soo dejiyey qul huwa allahu axad allahu الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل وحاتر هذا النبي محمد هو أرنك يشانك وحو يهي الله ألا أحد مدوي وكلي إلهي سبحانه وتعالى الله ألا الصمد والله أي أدومه سؤباهيهين أن إساقوا عدنا أباهنين الصمد مقع إلهي تبارك وتعالى والله أي أدومه سؤباهيهين قال يا مسلم با هل البرقسنا آني كم أرمي كرين إلهي تبارك وتعالى أي باهدو ذو شيكتان والصمد إلهي سبحانه وتعالى والله أي أدومه سؤباهيهين إن إساقوا عدنا أباهنين لم يلد وحمدل ولم يولد لما ندل ولم يكن له ولم يكن ومنيسا أهان له إلهي سبحانه وتعالى كفوا أحد عد أردغنتا إلهي سبحانه وتعالى مجرته سوردني لما أنت وحي كهذا ليس ويند إلهي سبحانه وتعالى أحد إنه إلهي تبارك وتعالى يهي بلال رضي الله عنه مركي أي مشركين تي قال ذا أي قراعيين أي عذابيين أي وحو كعل علينا أي كلمة أحد أحد إلهي سبحانه وتعالى والله كليجي أي تبارك وتعالى خالق وحو البابوري كليجي أيانا متيستي إلا عابده وأدون لو نقضه